agab isugu jira kuwa waxbarasho iyo kuwa caafimaad ayaa la soo gaarsiiyey isbitaalka weyn ee degmada Abuurtiinle iyo iskoolada degmada. Agabkan ayaa ka koobnaa waxyaalaha ugu muhiimsan dhinaca caafimaadka iyo dhinaca waxbarashada, iyadoona dhanka waxbarashada ay ka mid yihiin kombiyuutarro, sabuurado, buugaag, miisas iyo kuraas. Dhanka caafimaadkana sariirihii bukaan jiifka iyo gawaaridii curyaamada. Agabkan ayaa waxaa soo dhiibay Cabdishukri Faarax Maxamuud iyo Cabdifitaax Aadan Faarax oo ah dhalinyaro qurba joog reer Buurtiinle oo jooga wadanka Denmark. ugu horeyn ayaa wakiilka alaabta Cabdullaahi Faarax Maxamuud la hadlay TV-ga caalamiga ee Somali Channel. wakiilka alaabtan loo soo wakiishay inuu soo gaarsiiyo degmada Buurtiinle. alaabtan oo isugu jirta qalab caafimaad iyo qalab waxbarasho oo loo wada degmada Buurtiinle waxaa soo dhiibay niman dhalinyaro oo degan Denmark. nin yiraahdo Cabdishukri Faarax Maxamuud iyo nin saaxiibkiisa oo caawinayo leeyahay Cabdifitaax Aadan Faarax. nimankaas soo dhiibay aniga waxa ii soo wakiishan degmada Buurtiinle inaan soo gaarsiiyo waxaana ilaahay mahadiisa saaka inaan soo gaarsiiyo haddii dhex taaganay qol ay yaalaan sariiraha caafimaadku waxaana filayaa sida aan degmada ku aqaan iyo dadka jooga oo isbitaalka marka hore iska wax u qabso ku dhistay inay ka faa'iideysan doonaan in qalabkan la baadi doonana waxaa keentay isbitaalka oo lagu bilaabay iska wax u qabso oo ay dadku iyagu ay inta isku tashadeen oo bac qaateen ay wax iska ururiyeen taasaa keentay in qalabkan yimaado. waxaan ku oran lahaa marka dadka kale ha ku daydeen maamulaha isbitaalka jooga gudoomiyaha degmada jooga gudoomiyaha ku-xigeenkii baa jooga guddiga isbitaalka jooga community-gii baa jooga. waxaan filayaa haddii ilaahayno inay bulshadu si siman oo wada jira uga faa'iideysan doono ugana faa'iideyn doonaan iyaga laftooda haddii alla idmo waxaa jooga maamulkii waxbarashada ayana jooga. waxaan kula dardaarmayaa bulshada kalena inay arrintaa ku daydaan oo sidaas oo kale la yeelo oo jidka la mariyo wixii bulshada u yimaado ay noqdaan wax bulshada u siman tahay leesina gaarsiiyo. inkastoo aan ka jeclaan lahaa waxa banaanka inuu ka imaanay inaan gudaheena kala ka samaysano inuu kala soo baxno aan ka jeclaan lahaa gudaheena inaan ka samaysano isku tashano inuu haddana wax hadaad wax isku daydid oo wax samaysatid markaad wax u baahan tahay cidii wax ku siisa waad ka qaadanaysaa. waxaan u mahadcelinayaa marka isku dayga rag sameeyay oo dhalinyarada ahaa oo keenay iyo cid kasta oo gacan ka geysatay alaabtaas cid kasta oo gacan ka geysatay waa mahadcelinayaa. خير الله يديسيو. السلام يا أولاً حقيقة جدي هرمونية الدجمة قرأت سماها سبتالك عبد الله فارح محمود وأنت وكيلك علاقة من السعودية وسدوها عفماتك لما نحن سلام يا سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن أدوم ما هذين يا إلهنا ما حدا إسكاله مركب قوات مركب لبعض نمكن بذلك أساس يا عبد الفتاح يا عبد الشكري يا عبد الله يا رنتي بدال ليرada asagoo soo gaarsiiyay alaabtan Buurtiinle ku soo gaarsiinaa waan uga mahadcelinayaa dadaalka dheeraad ay soo sameeyeen waana ku faraxsanahay alaabtan inay mar labaad iyo mar saddexaad ba naga soo gaadho Denmark. dadkii soo dhiibay iyo dadkii ma garanaysaa loo soo dhiibay waxaan leenahay ilaahay ka abaalmariyo. hawshan waa hawl aad u culus dadkeenu waxa uu diyaar u yahay inuu isku tashto sida hadda Cabdullaahi Faarax Maxamuud la sheegay in dad dhamaantii isku tashtaan isbitaalkan oo arkaysan reer Buurtiinle ayaa dhistay iyaga ayaa qalabaystay iyaga ayaa u taagan markan inay marka qalabkii iyo hawlihiiba ay sii gardargeliyaan. waana ku faraxsanahay alaabtaada waxbarashada iyo caafimaadka isugu jiro waana soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay reer Denmark dadaalkiina sii labalaba. wassalaamu calaykum marka ugu horeysa waxaan salaamayaa maamulka degmada iyo golaha deegaanka iyo maamulka caafimaadka iyo maamulka waxbarashada iyo garaadsame maxamed faarax dhaashane iyo Cabdullaahi Faarax Maxamuud oo ah wakiilkiina soo gaarsiiyay deeqdan isugu jirta waxbarashada iyo caafimaadka waxyaalihii lagama maarmaanka u ahaa. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dadkii arrintan ka soo shaqeeyay kuwii isku hawlay kuwii fikradda lahaa kuwii ka qayb qaatay iyo kuwa keenay intaba. annagoo ugu horeysanayna Cabdishukri Faarax Maxamuud oo degan Denmark I think Copenhagen inay tahay magaalada uu joogo. sidaa daraadeed waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin waana soo gaartay alaabtaan noo soo dhiibteen dadka deegaanku aad bay ugu baahnaayeen waa idinkaga mahadcelinayaan waxayna leeyihiin waa laa shukra cala alwaajib waa dalkiina iyo dadkiina iyo deegaankiina waxaad wax u qabateen waana ku mahadsantihiin. ilaahayna waxaan idinka rajaynaynaa miisaanka xasanaadka inuu idin saaro dadaalka wanaagsan oo aad soo gasheen. si gaar ah waxaan ugu sii mahadcelinaynaa Cabdullaahi Faarax isagoona soo gaarsiiyay arrintan hadday tahay waxbarashada iyo hadday tahay caafimaadka labadaba
si wanaagsan oo fiican baa kaliya laaba loo soo dhaweeyay waxbarashada wixii looga baahnaa baa loo keenay sabuurado waaweyn baa loo keenay kuraastii baa la keenay miisaskii baa la keenay agabkii kale oo waxbarashada ka qayb qaadanaya sida kombiyuutarradii waa ku jireen aad baa ugu mahadsantihiin dhanka caafimaadka sariirihii baana loo keenay maxaan ku ihahdaa waxaa la keenay qalabkii maaragtay curyaamada la keenay yacni arrimahaas oo dhan waxay ahaayeen wax isbitaalku uu tabayay waxaa iyaguna aan meesha ka marayn ookiyaalihii dadka indhoolayaasha loogu talagalay iyo kuwa indhaha qaba oo ookiyaalaha u baahan intaba marka aad baan idinku mahadcelinaynaa waa mahadsantihiin baan idin leenahay kuwa idinla midka ah oo jaaliyadaha deegaanka ah oo gobollada kale iyo dalalka kale ee reer Yurub iyo Ameerika iyo adduunyada kaleba kala joogana waxaan iyagana ka codsanaynaa inay kuwaas walaalahooda ku daydaan kaalintaas oo kale ka qabsadaan wixii dalka ay tari karaan deegaanadooda waa yaqaaniin waa la xiriiraan waxay u baahan yihiin kuwa walba wixii ay ka qaban karaan inay ka qabtaan waana u mahadcelinaynaa xubnaha golaha deegaanka bahda caafimaadka oo Xasan Cabdullaahi Jaamac bahda waxbarashada saxaafadda dhalinyarada iyo soo qaybgalayaasha islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaaha mahadle alaabtan Cabdullaahi Faarax Maxamuud oo noo keenay maanta waan uga mahadcelinayaa raggii soo diyaariyay oo Cabdi Shukri iyo Cabdi Fataax oo ilaa January sanadkan hadda aan ku jirnaa la socday barnaamijkeeda iyo qorsheeda maalmo meesha marayay walaalayaal mahadsantihiin wayna soo gaartay waxaan kale u mahadcelinayaa dowladda Puntland ruuxooda waxay naga saaciday inay noo fududeyso canshuur dhaaf maadaama waxa ay yihiin wax arrimo bulshada looga shaqeynayo ayana way ku mahadsan yihiin cid kasta oo gacan ka geysatay way mahadsan tahay gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha caafimaadka iyo waxbarashada waxaan kula dardaarmaynaa si cadaalad ah oo qurux badan u gaarsiiya dadka curyaamada ama masaakiinta qalabkaas walaalahooda ugu soo deeqeen qalabka kale oo waxbarashada iyo isbitaalkana waxaan codsanaynaa xarumaha waxbarashada u baahan in si maaragtay waafaqsan ugu qaybsaan waa mahadsantihiin waxaan idinka rajaynaynaa inaad si fiican maamuli doontaan waxaan kale u mahadcelinayaa raggan geesaha taagan oo Muxuudiin iyo Cabdullaahi ay ka mid yihiin isbitaalkan maanta hadda aan taagannahay maalintii isagoo bannaana bac u qaatay in la dhiso oo dadka reer Puntland uu ka baxo isbitaal la'aanta ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa waxaana sharaf maanta iyo annaga iyo idinkaba maanta asagoo shaqeynaya oo dukaankii jiifo inaad xirfadaan oo ka shaqeynaysaan iyo suuqaha intaasna waad ku mahadsantihiin waxaan ku soo koobayaa saaxiibayaal waana soo gaadhay jaaliyadaha kale oo daawad doona oo reer Puntland u dhashay waxaan idin ka codsanaynaa sida Cabdi Fataax iyo ninka la yiraahdo Cabdi Shukri inaad idinkuna si la mid ah aad ugu soo qareentaan deegaamada kale oo aad ka soo jeedaan iyo assalaamu calaykum dhammaan way mahadsan yihiin ragga qalabkan iyo qalabka kasii horeeyay oo inta ka tira badanba oo qalabkii aan ku bilownay isbitaalka Puntland dadkooda bukaan-jiifka iyo bukaan-socodkooda isbitaalka hadda lama furina wax badan ayuu furnaa dadkii hore oo qalabkaa keenay iyo Cabdi Fataax iyo ragga kale hadda ayaga hadda alaabtaan keenay iyo Cabdullaahi alaabta isagana ka ahaa mas-uulka ahaa dhammaantood way mahadsan yihiin kolba waxaan hawshaan meeshaan inuu ku maqan annagu shacab baan iska nahay dadaalkii reer Puntland iyo dadka ku hagaagsan ee baadiyaha awoodooda waxay ahaayeen dhistaan isbitaalkooda laakiin ragga rooyada waxa qabtaan waa idinkooda insha Allah alaabtan soo gaadhay oo ay ka mid yihiin sida qalabka sirraha iyo waxaan ku sheegay alaabta curyaamiinta iyo kiyaalayaasha dhammaan wixii qalabna soo gaadhay insha Allah waxaan rajaynayaa sida ugu munaasabsan oo ugu fiican inaan insha Allah aan u gudbin doono والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليه جامع محمد TV عالمية Somali Channel. دقمة أبورتي اللي قبل خلوا قال.